wiilii gabadha ayaa isbartay waxaana iska barteen WhatsApp-ka xilligii waliba ay socotay sheerto gabadhii wiilkii muddo ay wada socdeen muddo ay wada sheekaysanayeen gabadhu wiilka way jeclayd waliba saaid ay u jeclaatay laakiin wiilku midna niyadiisa ma aysan geliyadu kaliya wuxuu arkay saaxiibadii oo markasta ay waqti isla qaataan laakiin asagu iyada agteeda wuxuu ka ahaa geedka ay harsato ka ay ku degto dawo karana ma isticmaashaan asaga ahaynba حتى هذه ماذا حنون قبته inankii gabadhii oo sidii ku wada socda oo noloshooda sidii iska tahay oo farxad wada qaybsadaan oo isla hadlaan oo waqtiga farabada wada qaataan midka kale uu ka farxiyo ayaa wiilkii wuxuu yiraahdaa gabadhii hal mar wiiga oo soo dhan lamaysan soo hadal ugu raadiyay uu waayay lambareedii oo dhan way xidhayeen wiilku wuxuu joogaa gobol kale iyaduna waxa ay joogtaa gobol kale wiilkii intiisa u raadinayay kadib ayuu hadaba intii ay khadku soo laabatay la hadashay uu weydiiyay maxaa kale buu ku dhaam maxaa jira sheeg maxaa wiigaasi ka maqnayd gabadhii wiilkii waxay ku tiri hoomiyadii danaynaysa oo maba ogin been danaynaysa muxuu ku yiri wiigaad maqnayd hal habeen ma seexanin runtii badan way muujiin wax ku helanayeen moodii oo sidaas ahaa okay way wax rabaa inaad hal codsiyo samayso gabadhii baa saas tiri wiilkii uu ku yiri saaxiibka baan noloshaada wax walba aan ku qaban jiray maanta ma hal codsi baan ku samayn karaa waaye ii sheeg waxaa ku jira horta marka hore aan ka dabageeyo 7 cisho horta waxaan ku maqnaa isbitaal baan ku jiray bedre awalna isbitaalka waan aadi jiray laakiin ma aanad ogaan jirin laakiin nimka waan soo xanuunka igu soo yar badanay bay tiri xanuunka ay hayana wax kala maahan kansar baan marxaladii afraad ah ma fahanti marka waxaan rabaa inaan markaan dhimanayo adigoo dhinacayga hurda ama gacantayda haya aan dhinto saaxiib laakiin uma aysan sheegin inay jeceshahay isagoo murugsan buu lahaday ku sameynaya sax codsigaagana uu nolosheedu dhan buu ka muhiimsan buu ku yiri way u baleenaan ku oofiyo ayba ku tiri noloshooda bes ka sii wateen kaftankoodii qosolkoodii maalmihii markuu sii socday gabadhii walaasheed la dardaarantay waxay tiri walaadii si kadis lagu soo boodo oo isbitaalka la dhigo la markan fariin u dir noo sheegina isbitaalka la dhigay way tiri walaasheed subax marka xanuunka la soo qaaday isbitaalka loo la cararay gabadhii sidii ay walaasheed kula balanteen walaasheed la markii u dirtay message asaga message-kii soo gaaray wuxuu ogaaday in gabadha xanuunsanayso oo isbitaalka la dhigay lambarkeedana xidhan yahay wiilkeen markaa wuxuu ka yara shaqayn jiray meel buushariya oo khudaarta lagu iibiyo dukaan weyn aagu beerbeersanay islahaad ku guursatay gabadhna uu hore soo qaatay markuu xaggeeda soo aaday gabadhii buu xaggeedii soo aaday magaaladii markuu uu yimid ay walaash la ku yiri isbitaalka ay sheegay gabadhu ku jirto waa uu tilmaamtay isbitaalka xaggiisa markaa soo aaday intii uu jidkooda socday uu sii gooniyay laami weyn ayaa gaaray xagga dambe ka jeeda nafta dhabarka ay wax ka noqday isbitaalka markii loo la cararay koomun galay markaas koomadii markuu ka soo baxay buu arkay jirkiisa intiisa kale oo aan dhaqaaqaynba kaliya qoortiisuna ay dhaqaaqayso doctorkii ayaa soo durisay wuxuu ku yiri inaa fayad ka noqotay jirkeenta kale aan ka ahayn qoortaadaas ii sheeg buu ku yiri aan ku waco ninkii doctorka uu ku yiri cidaadii wada ma garanayo dunida waxa ay saaran hooyaday oo kaliya hooyadayna way dhalaadayba bal suuray adu noloshaas ninkii doctorka soo la taagan buu ilmeeyay markaas doctorkii waa ku yiri ii sheeg waxaan ku qabto ma garanayo buu ku yiri waxaad samaysaa alaabteeda moolkayga iga baadh wuxuu ku yiri alaabtaadii lama soo qaadinba maalaba sidaati row intii gaadho markuu jiray ayay tuug alaabtiisa qaatay shadadii wuxuu yaray lacagta u bistay oo dhan nolosha wuxuu rabaa inuu ballankii oofiyo gabadhiina iyadana isbitaalka ay ku jirtaa oo aaday oo xanuunsanaysa laakiin waxay doonaysaa inay qabowdo waayo asaga ay sugaysa haddii uu yimaadana way ilaawaysaa 90% xanuunka haya bal suuray noloshaas iyadoo qof sugaysa qofkiina uu naafiyo sariir asna kastoo iyadoo xanuunku ku soo kordhana asagana waxa ku soo kordha xasuusteeda iyo balantii uu ka qaaday isagoo jiifa ay labada indhood ilmada ka socotay labada harrood sidii ay gabadhii ku dhimatay gabadhii walaasheed ahayd gabadha kale uu soo garaacday lambarkii uu dansan yahay oo bal leeyahay uu sheeg lahayd gabadhii inay dhimatay say wuxuu soo xasuustay isbitaalkii gabadha ee ku jirtay walaasheedna uu soo qortay doctorkii uu yeedhay doctorkii uu ku hal codsi baan doonay inay dii samayso suunaday taas aday dhib kugu tahay xitaa way buu ku dhigay sheeg wuxuu sheegay isbitaalkii gabadhu ku jirtay inooga sheekay qisadooda oo dhan wuxuu ballankiina uga sheekay u sheeg inaanan iman karayn buu ku yiri ma oga markaa in iyadu dhimatay gabadhii
u sheeg buu ku yidhi inaanan iman karayn noloshaas waxaasi heleen. Victoria ayaa aaday cisbitaalkii kale isagoo weliba ka yimid dad badan oo qalliimo ka sugayay. cisbitaalkii markuu yiri dawsa uga soo galay waa arkay reer hablo haween halka fadhiya oo dhammaantood ooyaya. Say weydiiyay ku dhahay maxaa helay. Markaas ay u sheegeen dadkii meesha joogay qof gabadh ka sarreeyay inay ku dhimatay meesha. Wuu gartay gabadha inay gabadhii tahay. dadkii meesha fadhiyay mid kamid ah ayuu magaceedu u sheegay Meheblaya dhimatay buu yiri. Sadheena okay baydi hooyadeed meeyay buu ku yiri oo loo tilmaamay. Wuxuu tagay islaantii oo kursi ku ooyaysa walaasheedna gabadha walaasheedna ayadna hoos fadhido hooyadeed. markaasuu salaamay wuu isu sheegay inuu doctor caankaas yahay oo ninkaas soo diray. gabadhii markiiba way garatay oo ay naxday. dhiba ku tir doctorka ma soo arki karaa ninka haabu ku yiri. doctorkii baa raacday gabadhii hooyadeedna way ka daba timi. asagoo sariirtii jiifa ayay u yimaadeen dhammaantood. gabadhii baa isu sheegtay hooyadeedna uu sheegtay waxa kaloo uu sheegay in gabadhii dhimatay. waxa kale uu sheegay in maxay toolay warqad uga tagtay ay ku sheegayso inay jeceshahay oo dareenka u qabto inta ay jecleed muddada ay jecleed iyo waxyaabo fara badan oo iyaga xasuustooda muruga haysay oo ahayd inaan iyada u tagin. muruga labaad baa raacday oo ah inaan iyadii asagoon u tagin ballankeeda uu ufin ay dhimatay. muruga saddexaad baa raacday oo ah inay intaas oo dhan jeclay. wuxuu weydiiyay hooyadii miyaad haasteen gabadhii. waxaan ku dhahin maya mana haasin. doctorkii hooyadii iyo dadkii meesha fadhiyay buu ku yiri hal codsi sameeya. doctor adiga hal codsi baan ka codsanaya oo ah inaad dhamaystirto waa inoo waxa ma qabsan karay buu. qofkii nolosha intaas soo dhibo soo marayna wuu ka tagay. qof kale asaga sidoo ii jecelna ma heli doono. waan ka daba tago ay dhamaystir. hooyadiina laba codsi buu weydiistay. wuxuu ku yiri hooyo waxaan rabaa inaad gabadhaada iyo aniga qabri nagu wada aasto. hooyaday halkaas joogtaa magaalada halka way indhalada inaad soo kaxayso oo nolosheeda inta nolosheeda ka faala qaado. marka ay dhimatana inaad kafan u iibso daasto. hooyadeen hayay tiri. doctorkii baa daweyn isku dardaray oo dhammaystiray ninkii. gabadhii iyo ninkii midna ismeen calfan laakiin waxa isku calfadeen in helo wada galaan. jaxaylada qaar waa la yaab. qisad jaxayl marnaan qoro laakiin dad badan baa codsigooda ahaa inaad qisadan ka heshaan baan filayaa. kulay inuu qisadan markaan qoray waa ilmeynay waayo wax walba way sawiranaayeen Soomaaliya. inaad qiso maqasho waaysi laakiin aad dareentay aad u adag. haddii aadan fahmin qisadan ku soo cesho waxaan u baahan inaad fahmi doonto.